khilaaf xooggan ayaa ka jira horyaalka Sacuudi Carabiya taa oo sababi kara khilaaf dhexmara ciyaartooyda wadanka Portugal. Kulankii xalay dhexmara kooxaha Al-Nassr iyo Al-Wahda ee wareegga toddobaad horyaalka Sacuudi Carabiya ayaa sababay hadal hayn badan kadib markii lagu tilmaamay in xilciyaareedkan garsoorayaasha ay ka caawinayaan Al-Nassr hanashada horyaalka ee Ronaldo dartii inay sare u kacdo daawashada horyaalku. Kulankii xalay garsooraha ee 15 daqiiqo waqti dheeraad ah ugu daray markaa ayuu haddana u dhigay Ronaldo rigoor aan saxayn oo daafacan gacanta ku taaban. ciyaartooy badan oo horyaalka kula tartamaya Al-Nassr ayaa falcelinka sameeyay iyagoo ku maadeystay dhacdadan sida Demiral Mahrez, Malcolm iyo ciyaartooy kale. balse arrinta aad ku dhibto Ronaldo waa falcelinta Navas laacibka isku qaranka yihiin xiriirka fiican oo ka dhaxeeyo. waqti yar kadib Ronaldo ayaa unfollow gareeyay ama followda kala laabtay Navas bartiisa Instagram-ka. dhacda walwalgelisay saxaafadda Portugal iyo taageerayaasha qaranka dhowr bilood ka hor bilowga koobka adduunka. waayo khilaafkani kaliya saameyn maayo labada ciyaaryahan xitaa jawiga qaranka ayuu saameynaya maadaama ay yihiin laba ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan xulka Portugal. Malcolm, ciyaaryahan Mahrez, Navas ayaa qosol soo saaray bartooda dhanka historiga ay ku qoslayaan in loo dhigo Ronaldo rigoor aan saxayn isaga uu dhaliyay uu ku dabaaldegay. Ronaldo dhacdadan carada uu ka qaaday ayuu follow kala laabtay xidiga isku wadanka yihiin Navas kaasoo ka ciyaara horyaalka Sacuudi Carabiya. lama oga halkay ku dambeyn doonto khilaafkan iyo dagaalka ka dhex bilaabanaya ciyaartooyda ka soo wada jeeda wadanka Portugal.